anigoo ah murashax u taagan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland kana sharaxan gobolka Maroodijeex waxaan dhiirigelinayaa dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland inay qaataan kaarka codbixiyaha doorashooyinka. Muwaadin, ma ogtahay 29 bishan November 2020 inay dib u bilaabmi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muwaadin, waxaad xaq u leedahay inaad wax dooratid laguna doorto. qaadashada kaarka codbixiyuhu waa furaha inaad dooran karto qof ku habboon inuu kugu matalo doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. sidaa daraaddeed, muwaadin, isdiiwaangeli haddii aanad hore isu diiwaangelin si aad u hesho jaaniska kala cid doorasho iyo kala doorasho, maadaama masayrkaaga iyo metelkaaguba ku xidhan yahay inaad cid u qalanta inay ku matasho aad doorato. ogow, codkaagu waa mustaqbalkaaga. haddaad in badan ka soo daashay qabyaalad cid ku doorasho, fadlan isdiiwaangeli. waa mustaqbalkaaga meeshaad ku sixi lahayd kuna dooran lahayd muwaadin xalaal ah, kaa turjumaya qarankanna wax u taraya oo sharcigu hago. anigoo ah muwaadin u taagan doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo socda, waxaan aad u dhiirigelinayaa in qof waliba qaato kaarka codbixiyaha gobol kasta iyo degmo kasta oo uu ka joogo Soomaaliland. dhalinyaro, waayeel, haween iyo rag, fadlan ka faa'iidaysta oo yaanu idin dhaafin jaaniska diiwaangelintu. waad mahadsantihiin.